ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kumaandooska ee Gorgor ayaa saacadii soo dhaafay waxay howlgallada qorsheysanayay ka fuliyeen deegaanka Jabadaari ee gobolka Shabeellada Hoose. Howlgalkan ayaa ciidamadu waxay ku beegsadeen fariisimo dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanadaasi, waxaana howlgalkan intuu socday ciidanku ay gacanta ku dhigeen qarxayo ay doonayeen ururka Al-Shabaab inay ku dhibaateeyaan dadka shacabka iyo sidoo kale agabyo kale oo ay ka carareen Al-Shabaab. Ciidanka ayaa sidoo kale warbaahinta u soo bandhigay fariisimo Al-Shabaab ay ku gaba jireen halkaas oo ay iskaga firxadeen kolka ay ka warheleen inay soo gaareen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. gobolka Shabeellaha Hoose waxaa si dardar kaga socda howlgallada isdaba jooga oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka sameynayaan, iyagoona saraakiisha hogaaminaysa ciidankaas ay sheegeen inay ka go'an tahay inay Al-Shabaab ay ka saaraan dhammaan gobolka Shabeellada Hoose iyo deegaanada hoostaga. waxaana ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed howlgalladii ugu dambeeyay ay hayeen kuwa ay guul weyn ka gaareen isla markaana Al-Shabaab ay kaga saareen deegaano fara badan oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose.